bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusub tahay ka mid noqo daawadayaasha sida tooska ugu xiran legrey shargarey aaraahdaadii waxay kula tahay ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibadaada hadba dhacdooyinku ugu waaweyn ay ka taagan Soomaaliya waxyaabaha daawa doontaan inaan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona bakaaraha wuxuu u xirnaa askar ka tirsan Niza oo dharka bedeshay Axmed Macalin Fiqi oo weerar ku qaaday Niza sheegayna bakaaruhu inay u xiran yihiin iyagu waxaan idiin soo gudbin doonaa eedeyntaasi waxa ay ku qotonto lafta garan oo burburiyay qorshihii Deni Madoobe iyo Guudlaabe maxay tahay sababtu xogo ayaan idinkaga soo gudbin doonaa daawadayaal iyo guddida doorashada Soomaaliland oo shaaciyay jadwalka doorashada 8 kursi oo hor leh qodobada ayaan ku faaqidi doonaa halkan daawadayaal haddii aad ku cusub tahay ka mid noqo daawadayaasha sida tooska ugu xiran legrey shargarey aaraaraadii waxay kula tahay ka dhiibo bakaaraha wuxuu u xirnaa askar ka tirsan Niza oo dharka bedeshay wasiirkii hore ee amniga galmudug ayaa sidaas yiri waa Axmed Macalin Fiqi 3 maalmood lama furin qaybta lagu iibiyo qalabka dhismaha ee ku tirsan Jid Mareexaan waxaana arintaasi ka hadashay dowladda Soomaaliya wasiirkii hore ee amniga galmudug ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday Axmed Macalin Fiqi ayaa shaaciyay xog xasaasi ah qoraal uu maanta soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay inuu helay macluumaad sheegaya in askar ka tirsan Niza oo dharka bedeshay uu bakaaraha u xirnaa 3 maalin ugu dambeyn suuqa bakaaruhu wuxuu u xirnaa maalmihii tagay askar ka tirsan Niza oo dharka bedeshay lacag baad ah oo badana ka qaaday askarta wuxuu sidoo kale Fiqi horey u ahaa agaasimaha Niza u soo noqday dowladii Shariif Sheekh Axmed su'aal ka keenay cidda ka dambaysa dilalka qorsheysan ee ka dhacaya magaalada caasimadda ah horey waxaa loo baahiyay in suuqa ay xirtay Daacish markii loo diiday lacag ay ka dalbatay ganacsatada oo cadadkeeda la sheegin xukuumadda weli ma sameeynin wax tallaabo ah Daacish iyo Al-Shabaab ayaa canshuur qasab ah ka qaada magaalooyinka dowladdu xukunto iyo kuwa maamul goboleedyada taasi oo dhibaato ku noqotay ganacsiga Soomaaliya ayay leeyihiin dadka siyaasadda iyo amniga u dhunduleela bil kasta waxaa la sheegay in Al-Shabaab 15 milyan oo dollarka Mareykanka ah ay ka hesho ganacsiga Muqdisho kaliya iyadoo lacagtaasi ay kordhayso maadaama kooxdu bilowday inay dhulka markaasi la kala iibsado canshuurto waxay ahayd warbixin dhawaan markaasi laga baahiyay dakhliga markaasi Al-Shabaab soo galay inuu yahay kooxda ugu markaasi badan ee markaasi ka tirsan Al-Qaacida lacago soo xareysa sida markaasi warbixin caalami ah oo la baahiyay sheegaysay lafta garan ayaa burburiyay qorshihii Deni Madoobe iyo Guudlaabe hogaamiyaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis lafta garan ayaa weli markaasi go'aan ka gaarin ama weli ka go'an inuu ka shaqeeyo dariiq walba oo uu madaxweyne Farmaajo ugu soo laaban karo Villa Soomaaliya guddida doorashooyinka koonfur galbeed Soomaaliya waxay markaasi shaaciyeen kursi horeysay oo ay soo baahiyeen 13 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee lagu dooran doono Baraawe ee golaha markaasi waa gobolkaasi Shabeellaha Hoose Baraawe waa caasimadda rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kaasi oo hadda si ku meel gaar ah ugu shaqeynayo magaalada Baydhabo talaabadan ayaa waxaa soo afjartay aragti ay kor markaasi ku hayeen qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada hogaamiyaasha maamulada Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe weli dhibaato ayaa ka haysata gobolka Gedo mana rabo inuu Garbahaare ku qabto doorasho hogaamiyaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdilaahi Deni culeys badan ayaa kaga yimid dhanka Boosaaso halkaasi uu ka walacsan yahay inuusan sida uu doono uusan ka yeeli karin 16 kursi ee taala halka hogaamiyaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe weli loo diidan yahay inuu tago magaalada Beledweyne oo ay taalo 25 kursi oo golaha shacabka ah waxaa la sheegay in saddexdaasi hogaamiye ay qabeen aragti ah in marka ay soo dhamaadaan doorashooyinka ka socda xarumaha maamul goboleedyada in la qabto hal shir oo golaha wada tashiga qaran ah kadibna la qaato go'aan ah hal deegaan doorasho oo laga laabto kuraasta loo calaamadeeyay magaalooyinka Boosaaso Gaalkacyo Beledweyne Garbahaare iyo Baraawe inta aan taas la gaarin Cabdicasiis lafta garan ayaa xalay markaasi ceel dheer ku riday rajadaasi wuxuuna uu soo dhajiyay kuraasta taala Baraawe hogaamiyaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo saaxiibkiisii hogaamiyaha
maamulkaasi koonfur galbeed laftigreen iyagoo marnaba ma keenin golaha wadatashiga qaranka dood ku saabsan hal deegaan doorasho, waxayna ahaayeen raggii diidanaa in laga qabto doorashada laba deegaan doorasho iyo ergo 101 ah. nidaamka madaxweyne Farmaajo oo loo diiwaangelin doono hanaanka doorashadaasi wuxuu markaasi bari sheegan doonaa inuu doorashada dalka gaarsiiyay 101 ergo iyo laba magaalo, balse weli waa doorasho dadban iyo mid boobkeeda cad yahay. hogaamiyaha Puntland Saciid Deni wuxuu hadda ku qasban yahay inuu la tacaalo xaaladda magaalada Boosaaso maadaama uu hirgeliyay kiiska labada deegaan doorasho, halka Axmed Madoobe uu isna liqi doono qaraarka 16 kursi ee Garbaharey oo dhanka Farmaajo aadi doona. Cali Guudlaabe Xuseen wuxuu hadda ku qasban yahay inuu arinta beledweyne u raadiyo xal uu ku fulin karo maadaama aan laga baaqsan karin in doorashada ka dhacdo magaalada beledweyne, inkastoo kooxda madaxweyne Farmaajo lagu eedeynayo inay si weyn gacanta ugala jiraan arrimaha magaalada beledweyne. tallaabada waxa la qaaday Cabdicasiis Laftigreen waxa lagu sheegay codsi kaga yimid saaxiibadiisa Villa Soomaaliya, balse Laftigreen laftiisu wuxuu leeyahay dan doorasho. waxaa jira warar sheegaya in hogaamiyaha koonfur galbeed uu ku jiro damac la xidhiidha kursiga gudoomiyaha gobolka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, inuu riyadaasi waqtiga fog soo jirtay rumeeyana waxay u baahan tahay inuu helo garabka kooxda madaxweyne Farmaajo, kuwaasi oo saameyn xoog leh ku leh kuraasta golaha shacabka. gudida doorashooyinka Somaliland ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 8 kursi oo hor leh. gudida maamulka doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 8 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka Soomaaliya. qoraal ay soo saareen gudida doorashooyinka Somaliland ayaa lagu sheegay in diiwaangelinta ergada wax dooranaysa iyo diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa 8 kursi ay bilaabanayso 1 bishan soo socota ee Febraayo 2022. gudida ayaa shaaciyay in doorashada kuraasta tirsigoodu yahay hob 270, hob 271, hob 218, hob 226, hob 269, hob 268, hob 267, hob 236 la qaban doono bisha markaasi February 2, waxaana doorashada ka dhacaysa magaalada Muqdisho ay noqon doontaa mid lagu loolami doono. gudida maamulka doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa si dardar leh u wada qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka, waxaana haatan la doortay 24 xildhibaan oo ka soo jeeda Somaliland, halka kuwa kalena ay markaasi weli ay harsan yihiin oo ay ku jiraan liiska markaasi la rajeynayo in doorashadoodu ay dhacdo. daawadayaal saaxiibayaal, si kastoo xaaladda noqoto, waxaa markaasi kol sii horeysa la sheegayay in doorashada qaar ka mid ah waa guddigaasi doorashooyinka ee Somaliland laguna weeraray xaruntooda Muqdisho, sida warar soo baxay oo aanu helayna sheegayeen. warqadan ka soo baxday markaasi guddiga maamulka doorashada xildhibaanada labada aqal ee Somaliland ayaa markaasi ku socotay gudida hirgelinta doorashooyinka heer federaal, waxaana la ogeysiyay xafiiska guddidaasi xalinta khilaafaadka doorashada dadban iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. ujeedo shaacin jadwalka doorashada golaha shacabka ayaa lagu yiri gudida maamulka doorashooyinka kuraasta labada aqal ee Somaliland waxay ogeysiinayaan ergada iyo musharaxiinta u tartamaysa kuraasta tirsigoodu hoos ku qoran yihiin inay u diyaargaroobaan diiwaangelinta maalmaha ku xusan jaantuuska hoose. kuraasta la qabanayo hob 270, hob 269, hob 271, hob 268, hob 218, hob 267, hob 226, hob 236 ayaa markaasi yihiin kuraasta. taariikhda la qaban doono shaqada la qabanayo ayaa sidoo kale ahba 3 bisha 1 2022. diiwaangelinta ergada, tababaridda, qabashada codsiga iyo xaqiijinta shuruudaha musharaxiinta ayaa markaasi qabsoomi doona 3 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. 3 bisha 1 oo ah maalinta ugu dambeysay bishan gabagabada ah. diiwaangelinta ergada, tababaridda, qabashada codsiyada iyo xaqiijinta shuruudaha iyo musharaxiinta ayaa sidoo kale qabsoomaya waqtiga sidoo kale waa 3 ilaa 5 galabnimo. sidoo kale waxa ayna 1 bisha 2 2022 qabsoomaysa isla markaasi tixraaci hore oo ahaa diiwaangelinta ergada,
tababarida qabashada codsiga xaqiijinta shuruudaha musharaxiinta waqtiguna waa waqtigii oo 9 ilaa 5 labada bisha labaad ayay markaasi tahay qabashada doorashada waxaana sidoo kale waqtigu yahay 3 ilaa 5 markaasi galabnimo waxaa ku saxiixnaa qadar xariir xuseen gudoomiyaha guddida doorashooyinka Somaliland daawade saaxiib halka ayaa ku soo koobana warbixinaadkeena haddii aad ku cusub tahay kamid noqon daawadayaasha sida tooska ugu xiran la garay shirgaray araahdaada waxay kula tahay in ka dhiiba daawade halkan waa nuxurka wararka